السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله مجعشين إند إلهي سبحانه وتعالى بيع مشتري لك الشان مجعشين إند إلهي سبحانه وتعالى هذا وحكا إبستان حدي أجعشين إند إلهي سبحانه وتعالى وحكا إبستان سيدي أصحابتي النبي قبل أي أوغا إبسدين وكله حدبا عاو وحان جعلها إن المقال كان كوغسو باهيو بايع مشتري إيا كنعسي aan runtii lagu khasaarin bayaac mushtariga wuxuu yahay dhammaan waxaan wada rajaynaynaa inaan jidka ilaahay subxaanahu watacaala iyo diinta ilaahay u dhimano haddaba haddaan jecelnahay inaan jidka ilaahay iyo diinta ilaahay u dhimano runtii waxaa la joogaa xili markaa khatara xili markaa aanay munaasab ahayn qofka mu'minka inta uu hub qaato uu la jihaado markaa dadkii markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu nafaray haddaba maadaama ayna suurtagal ahayn waxaan doonayaa inaan kula wadaago arrin suurtagelinaysa ku gaarsiinaysa darajadii markaa iyo ajiradii ay heleen dadkii shuhadada jidka ilaahay subxaanahu watacaala u dhintay haddaba muuqaalkeena caawa waxaan rabaa inaan idinkula wadaago mid ka mid ah darajooyinka iyo afcaalada iyo ficilada haddii aan samayna aan ku heli karno haddii aan markaas samayna aan ku heli karno ajirka shahiidka qofka shahiidka oo kale isla markaana aan ku gaari karno darajadii dadkii shuhadada jidka ilaahay u dagaalamay oo kale haddaba qodobka koowaad wuxuu yahay alsabru fi zamani alfitna in la samro xilliga fitnada markaa lagu jiro xaaladda fitnada marka ay jirto qofka mu'minka inuu sabro uu markaa sabarka ku dadaalo qofkaasi wuxuu ku mutaysan karaa ama uu ku heli karaa darajada markaa dadkii shuhadada ayuu ilaahay gaarsiin karaa ajirkii dadkii shuhadada jidka ilaahay u dhintayna wuu heli karaa ajirka qofka shahiidka oo kalena wuu helayaa haddaba nabiga sala allahu calayhi wasalam isagoo arrintaa caddaynaya wuxuu leeyahay ina min waraa'ikum zamaanu sabrin lilmutamasiki fiihi khayru lilmutamasiki fiihi ajru 50 shahiidan minkum allahu akbar nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay waxaa la hortiina ah ama iman doonta xilli qofka mu'minka loo baahan yahay inuu samro haddaba xilligaasi waa xilligee xilligaasi waa xilliga qofka la dilay uusan garanaynin wixii lagu dilay kii wax dilayna uusan ogayn wixii lagu dilay waa xilli wixii xalaasha ahaa iyo wixii xaaraanka ahaa qofka mu'minka uusan kala garanayn waa xilli fitnadii ay badatay munkarkii uu batay macaasidii ay badatay iimaankii uu yaraaday yaqiintii ilaahay subxaanahu watacaala khayrkii ilaahay laga yaqiinsanaa markaa uu daciifay qofkii mu'minka uu noqday qof mutashaa'im ah wax baasaysanaya bilaa sabar ah haddaba xilligan waa xilliguu nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uu yiri waxaa la gaari doonaa qofkii xilli markaa kala carar ah kala guur ah jahawareer ah markaa la wada yaaban yahay la wada qasan yahay qofna uusan ogeyn wixii saxda ahaa qofka markaa wixii khaldanaa haddaba qofka garan kara wixii khaldanaa iyo wixii saxda ahaana uu yahay qofka diintiisii haysta weliba wuxuu yiri nabiga sala allahu calayhi wasalam xilligaasi qofka diintiisa haysta wuxuu la mid yahay qof dhimbil daba gacanta ku haya qof dhimbil daba ama dab gacanta ku haya oo kale markaa la mid noqonaya haddaba xilligaasa lagu jiraa xilligaasi qofkii markaa xaqa ku samra ee ku dhabar adeega ee markaa issabarsiiya qofkaasi wuxuu helayaa ajirka 50 qof oo shuhada oo kale haddaba wuxuu leeyahay 50 ajirka qof ama qofkaasi wuxuu leeyahay ajirka 50 shahiid oo kale 50 qof oo jidka ilaahay u dhimatay ee jidka ilaahay u shahiiday oo kale ayuu markaa qofka helayaa haddaba walaal haddii aad jeceshahay inuu ilaahay ajirka iyo markaa mansilada dadka shuhadada uu ku gaarsiiyo sabar xilligan lagu jiro diintaadana ku dhabar adayg diintaada hayso diintaada markaa u adayg diintaada mid isku sabarsiiya oo haysta oo markaa ku dhaqmo noqo waxaad noqonaysaa markaa qof ilaahay subxaanahu watacaala haddii aad sidaa ku dhimato ama aad sidaa kusii dagaalanto ilaahay wuxuu ku siinayaa ajirka qofka shahiidka oo kale qofka shahiidkana waxaad la mid noqonaysaa ama aad heli doontaa weliba qofka shahiidka adigaa markaa ka qiimo badnaanaya waayo waxaad helaysaa 50 qof oo shahiida ajirkoodii oo kale ayaad markaa helaysaa haddaba walaal naftaada sabarsii xilli waxaa lagu jiraa xun
naftaada sabarsii oo naftaada markaa wanaaga iyo sabar wanaaga bar oo diinta ku sabarsii. baaraka allahu fiikum, jazaakum allahu khayra. sheer gareeya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.